waayahay soo dhawaada qiyaarta nala socota waxaan dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha iyo waliba kulanka ka soconaya gobolka Alaska ee dalka Mareykanka sida muuqataba caawa waxaa halkaasi soo gaaray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ay siday diyaarad madaxtooye oo aqalka Kremlinka ay leeyihiin taasi oo u gaara madaxweynaha wadankaasi waxaan dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay hanaanka loo soo dhaweeyay qaabka protokolka loo agaasimay ee gobolka Alaska loogu soo dhaweeyay saldhigga militariga ciidamada halkaasi ku sugan dawladaha waaweyn adduunka oo caawa war ka soo saaray kulankaasi dawladda Ingiriiska ayaa kamid ah madaxweyne Donald Trump oo muddo 30 daqiiqo caawa gudaha diyaaradda ku jira oo albaabka ay u xirnayd waxyaabaha sida gaarka loo eegayo waxaa kamid ah hanaanka protokolka miiska waxyaabaha saaran ee la gorfayn doono Sergey Lavrov oo ka hor inta aanu Putin soo gaarin kulanka iyo goobta ay wax ka dhacayaan ku tilmaamay in mowqifyo adag ay wataan dalka Ruushkana aanu ka fakari doonin wax la yiraahdo mustaqbal su'aalo iyo waliba aragtiyo waaweyn ay doonayaan cunaqabatayntii Ruushka saarnayd oo caawa wax la iska oran doono Trump oo si weyn u amaanay Putin iyo waliba dhaqdhaqaaqyada caawa ka soconaya gobolka Alaska warbaahinta adduunka oo indhaha ku haysa kulankaasi iyo waliba waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa mustaqbalka Ukraine iyo waliba kan Ruushka doonitaanka madaxweyne Trump iyo waliba oo orod raacdeyntii uu ugu jiro abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka halka caawa ay wax taagan yihiin maxay ka dhigan tahay in ciidda gobolka Alaska caawa uu ku socdo madaxweyne Putin aqyaarta nala socotay arrimahaasi ayaan dul istaagi doonaa inagoo dhinacyo kala duwan ka fiiri doono waxyaabaha qobarada ay ka leeyihiin waarankii maxkamadda dambiyadu ay hore ugu soo jarta Putin waxyaabaha laga oran doono dhulka laga qaadanayo Ukraine cunaqabataynta Ruushka iyo waliba dhinacyada kala duwan ee mustaqbalka adduunka kulankan uu ku yeelan doono haddii aan ku horeeyo qaabka loo soo dhaweeyo madaxweyne Putin iyo waliba waxa qobarada protokolku ay ka leeyihiin arrintan ayaan ku hormarayaa madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka soo duulay magaalada Washington DC isagoo wata diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One loo yaqaano waxa markii uu halkaasi ka soo duulay oo wariyaasha u sheegay Putin inuu yahay nin mucjiso ah oo aad u caqli badan iyo saaxiib uu filasho weyn ka qaba caawa go'aamo xasaasi ah inay gaaraan 6 saacadood ilaa 7 saacadood oo wada hadal ah ayay labada dhinac jadwalka sida loo qorsheeyaba ay ku tilmaameen inuu u socon doono inta kadib madaxweyne Trump ayaa diyaaradiisa soo qaatay isagoo Washington soo macsalaameeyay gobolka Alaska ayuu yimi saldhigga sida gaarka ah loogu talagalay ee military kulanka inuu ka dhaco muddo 30 daqiiqadood ah ayay diyaaradiisu fadhisay garoonka ka hor inta aanu Putin halkaasi soo gaarin arrinta mucjisada lahayd caawa waxay noqotay markii labada madaxweyne mar kaliya diyaaradahoodii albaabada loo wada furay si isku mid ah ay tallaabada u wada qaadeen labada jaranjaro ee diyaaradaha loo kala dhigay kadibna roog cas oo loo dhigay labada madaxweyne midba daraf uu uga soo socday ilaa iyo Trump uu istaagay barta qaabilaadda Putin oo in muddo soo soconaya kadib Trump ayuu gacan qaaday labadooda ayaa wada hadlay mana jirin wax turjubaana ah ma jirin wafuud kale iyo dad gaar ah oo dhinaca protokolka loo diyaariyay oo iyana la isbaray hase ahaatee waxay labada madaxweyne soo dil istaageen meel yar oo kaabad ah oo kor loo dhisay dhinaca ama docdana looga qoray Alaska 2025 halkaas ayaa sawirro lagu wada galay soo socoshadoodii kale diyaarad kuwa militariga ah oo jiilka shanaad oo Ameerikaanku ay leeyihiin ayaa Putin iyo Trump dul martay taas oo dareenka qofnimo ee Putin qaadatay kadibna uu si sare u dhugtay warbaahinta ayaa arrintaasi su'aalo gelisay laakiin waxa la yiri waa qayb ka mid ah protokolka iyo soo dhaweynta labada madaxweyne waxay raaceen gaari aad u qurux badan oo madaxtooyada dalka Mareykanku ay diyaarisay kadibna iyagoo wada jira oo gaari qaybta dambe ka wada saaran
ayaa waxay u dhaqaaqeen barta kulanka iyo wadahadallada. waa Putin iyo Trump oo isku hanjabaya toddobaadyo ka hor oo caawa gaari wada saaran isla markaana ku sii socda goobtii wadahadalka loo diyaariyay. arrintaasi waxaa ka darnayd inta labada madaxweyne aanay isku iman, labadooda diyaaradoodna aanay soo fadhiisan garoonka barta wadahadalka. waxaa goobta soo gaaray wafdi uu horkacaya Sergey Lavrov, wasiirka amuraha dibadda ee dalka Ruushka. markii uu halkaasi yimi isla markaana diyaaradda ay ka soo degeen ayaa wariyaashu qaarkood waxay hor dhigeen mikrofoonka waxaana la weydiiyey maxaad rajaynaysaan kulankan inuu ka soo baxo. waxa uu si fudud u yidhi rajadu ma xuma. Steve Witkoff iyo inagu intii aan Moscow wada joogna ayaa wax badan la isla qaabeeyey, aragtiyo badanna la isla meel dhigay, laakiin annaga kama hadlayna mustaqbal, hadda ayaan ka hadlaynaa. Ruushku waxa uu wataa su'aalo iyo xujooyin badan, Maraykanka ayaase looga baahan yahay bartan inay ku furaan. intaa markii uu yimid warbaahinta iyo falanqeeyaashu waa ay sii qaadeen hadalkan, waxaana la yidhi Ruushka hadalkiisa meel ayuu yaallaa, cidda dalabyada la raba inay fuliso oo ay ka hadashana waa dowladda Maraykanka. intaa kadib waxaa hadda muuqanaya qaar ka mida warbaahinta adduunka in ay tabinayaan dowlado siyaabo kala duwan uga hadlaya. wasiirka amuraha dibadda ee dalka la yidhaahdo Ingiriiska David Lammy ayaa qoraal soo saaray waxa uu leeyahay kulanka Alaska iyo Putin waxay noqonaysaa tallaabo xagga nabadda iyo horumarka loo qaaday. waan bogaadinaynaa haddii aan nahay Britain, Yurubna waxaan filaynaa inay nala qaado. intaa kadib waxaa si gaara warbaahinta ay u eegaysaa nin la yidhaahdo Gray oo ka mid ah dadka ka mida ama la socda madaxweyne Putin ee kulanka ka qaybgalaya. ninkan laba siyaabood ayaa indhaha loogu hayaa. waa mare waxa uu ka baxay jaamacadaha waaweyn ee dalka Maraykanka, waxa uu ka soo shaqeeyey banuugta waaweyn ee dalkaasi Maraykanku ay leeyihiin, waxa uu fahmayaa dhaqaalaha waddanka Maraykanka iyo ujeeddada dowladda Washington ay damacsan tahay. waa nin dhaqan ahaan, fikir ahaan iyo dhaqaale ahaanba fahmi karaa dowladda Washington. si gaara ayuu madaxweyne Putin ninkan u wataa. waxaa sidoo kale ka qaybgalaya kulanka Sergey Lavrov oo ah wasiirka amuraha dibadda, wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Ruushka, wasiirka maaliyadda iyo xubno kale oo si gaara loo soo xulay. Trump waxaa ku weheli doona kulankan Marco Rubio oo ah xogayaha amuraha dibadda Maraykanka, madaxa hay'adda CIA-da ee sirdoonka dhexe ee dalka Maraykanka, wasiiro iyo waliba rag kale oo si gaara loo soo xulay, iyadoo indhaha lagu qaban doono caawa waxyaabaha laga yeelin doono dalabyada waaweyn ee dowladda Ruushku ay bannaanka keeni doonto. waxaa ka mid ah arrimaha shidaalka iyo cunaqabataynta la saaray, taasoo ay ku qasbanaan doonto baa la yidhi Washington in ay degdeg ku aqbasho in arrimaha cunaqabatayntana meesha ay ka saarto, isla markaana ay aqbasho dalabyada dhinacan kale ka imaanaya. waxyaabaha kale ee Ruushka uu soo hadal qaadi doono waxaa ka mid ah gobollada laga qaadan doono Ukraine iyo waliba tallaabooyinkan hadda dowladda ay qaadayso Moscow inay tahay mid geedka go'ana. taariikhda waxaa la leeyahay sida khubarada daraasaysa dalka Ruushka caawa ay u sheegayaan warbaahinta, madaxweyne Putin ma aha nin ka tanaasulay, weligeena tanaasul ma samaynayaa la yidhi. cidda tanaasul laga filayo oo keliya waa Maraykanka, weliba marka ay timaado arrimaha dhulka iyo damaca dowladda Moscow. ninka la yidhaahdo Putin aad ayuu ugu adag yahay. Trump arrintan caawa kulankan Alaska laba ujeeddo ayuu ka leeyahay. waa mare in uu baabi'iyo colaadda dalka Ukraine ka socota iyo dhiigan daadanaya, marka kalena waxa uu rabaa in uu noqdo bar biritaarta kulankan doonitaankiisa iyo orodkiisa abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize-ka, isagoo rikoor ahaan isbarbar dhigaya xalintii colaaddii Armenia iyo Azerbaijan, nabadka gaaridii dagaaladii Hindiya iyo Pakistan, xal u helidii dagaalkii Israa'iil iyo Iiraan, iyo weliba joojinta dagaalka bariga dhexe oo hadda aad ugu foogan yahay. taasi waxaa raaci doonta dagaalka Ukraine oo hadda noqonayo mid ka mid ah waxaa culaysiin doona malafyadiisa ku aadan u sharaxitaanka uu isku sharaxay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka.
arrimaha kale oo caawa xiiso leh oo si gaar ah loo soo qaadayo waxaa ka mid ah in markii ugu horeysay madaxweyne dalka Ruushka ka socda iyo waliba waxa la isku oran jiray midowga Sofiyeedka uu ku socda ciidda gobolka Alaska tan oo dadka qaar ay leeyihiin xiiso gaar ah ay leedahay. caawa waxa la go'aamin doonaa mustaqbalka 3 caasimadood oo kala duwan. waxa la go'aamin doonaa colaadda ka soconaysa Kiev, dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta Moscow, iyo waliba culayska iyo cadaadiska ee wajahayso dalkan ama caasimadan la yiraahdo Washington DC ee Mareykanka. ujeedooyinkiisa waxay tahay caalamka go'aamada halkan lagu gaari doono ma noqonayaan kuwa nabadeeya. waa su'aal u baahan in kulanka markii uu dhamaado 7 saac kadib looga jawaabo. aad baad u mahadsantihiin akhyaray.